maanta oo dhan waxaanu ka hadlaynay bari iyo boosaaso fiiri xaqaa'iqa jira oo anaga khaldaya waxa way nus milyan iyo ka badan ba la ictiqaadsan yahay inuu tilkoob sax maayo laakiin tilkoobyadii markii la isu geeyay nus milyan ka badan ba boosaaso kaliya ku nool yahay hareeraha marka ugu horeysa su'aasha aan weydiinayna waxa weeye markay nus milyan ka 500 kun alxamdulillah waa nus milyan waa fiican tahay ilaahay mahadi laakiin intee baa 18 ka weyn dad badan baa naga haraya marka 18 jir iyo wixii ka weyn baa codeyn kara waxaa naga haraya ugu yaraan 20% dadkii aan ku talagalaynay oo aan tirsanay 400 kun haddana maxaa noo soo galay dadka dastuurku uu leeyahay xaq uma leh oo kuma dhalan ama xeerka doorashada oo qofkaasi uma dhalan 10 sano ka badan kii joogay sax kan kaloo la xaqliyo waxaa noo soo haray dad naafa ah dad aan tegi karinin dad ka wahsanaya iyo dad badan oo suuqa ku arkaysa laxadkooda u dhan yahay oo dhalinyaro iyo dad walba isugu jira oo kale ruuxaan doorashada wax la sheegay waqti walba sugayay laga daayo oo iyagu waa waddan kastana waa leeyahay ummad kastana waa ku dhex jiraan anu markii aan fiiriyay dadkaas qaybaha bulshada aan soo celceliyay waxaan isri allahumma boqolkun iyo xoogaa 110 haddaanu boosaaso helno buraan sidnaa waa fiicanna suuqaan tagnay businesska oo dhan iyo suuqyadii waxay dhan waa wada furan yihiin dadkii codayn lahaa oo dhan meeshay wada dhooban yihiin hal qofoo tagayna lama arko qofkaani qof buu u shaqeeyaa qofka u shaqeeyaa soo fasaxi mayo inta yartaa oo qadada u soo aadan isaga kama badna inuu saf u galo ama waxaa laga yaabaaba inuusan ahaynba 10 sano qof joogay oo xaq u leh inuu codeeyo marka innaga lafteen waxaana loo ka baahan yahay marka inaanu ku xisaabtanno fiiri qofka Soomaaliyeed maanta boosaaso maqlay uu og boosaaso wixii ay Puntland iyo Soomaalida kale u qabatay 30 sano la soo dhaafay naga aqrisamayo tira inta la eegba boosaaso ku nool iska diiwaan gelisay meesha aqrisamayo waa umana qalanto boosaaso runtii inta ay leedahay geeska ku soo wareegay